waxaan oo dhan waxaan u sameynayaa in dadka raalli iga noqdaan waxaan oo dhan waxaan doonayaa in dadku ay aad ii fahmaan dadka xasan albasri oo ka mid ahaa culammada islaamka ee waaweyn ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa la weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo hadallada dadka ay yiraahdaan iyo waxa isaga laga aaminsan yahay iyo dadka ka gadaal hadlay inta badan markaas ayuu ku jawaabay anigu waxaan dhashay kaligay waxaan dhimanayaa kaligay waxaa qabriga lay dhigayaa kaligay haddii allah subxaanahu wa tacaala hortiisa laygu xisaabayana waxaa lay xisaabayaa kaligay haddii naarta lay gelinayo waxaa lay gelinayaa kaligay haddii aan jannada galayana waxaan galayaa kaligay haddaba maxaa dadka iga galay barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay saameynta hadallada dadka kale ay ku yeeshaan qofka noloshiisa waxay dadka kale kaa aaminsan yihiin waxay kaa gadaal yiraahdaan ama ay kugu xantaan taasi oo mararka qaar sabab u noqon karta in qofka uu waayo noloshiisa dadka qaar ayaa qaata fikrad qof kale iyagoo nafsadooda daldala haddaba maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago talooyin aad muhiim u ah oo qalbi idin jecel ka yimid kuwaasi oo noqon doona kuwa noloshaada wax badan ka bedela biidni illaahi alkariim haddii aad jeclaatay muuqaalkan oo aad ku qanacday please laagta saar si dad badan ay u ogaadaan muuqaalkan wanaagiisa subscribe-kana saar channelka haddii aad ku cusub tahay si aad u heshid muuqaaladii ugu dambeeyey oo aan warbaahintan wacdaraha kusoo bandhigi doono anigu waa Cabdi Kambala warbaahintan waa wacdaraha qof walba waxa uu xaq u leeyahay in uu u noolaado sida isagu u jecel yahay qof adiga ku noqonaya ifka ma jiro haddii aad ku qanacsantahay nafsadaada waxaa tahay ruuxa ugu sarreeya dunida oo dhan haddaba noloshu waa hal mar ku soo maraysa isbeddel kalena aanan lahayn oo jaaniska keliya ee hadda ku soo mara ah miyay kaa mudan tahay inaad ku dayacdid fikradaha dadka kale kaama mudna noloshaada waqtiga nolosha aad ayuu xisaaban yahay qof walba hadda wuxuu ogaan karaa aniga hadda waxaan ogsoonahay inta maalin ee aan ifka joogo inta saacadood ee aan haddadan aan muuqaalkan duubay aan jiro inta daqiiqa oo aan jiro ayaan ogsoonahay inta sanana taas aad ay u sahlan tahay qof walba ayaaba ku xisaabtama taas waxay caddeyn u tahay in waqtigu uu yahay wax qaali ah adiguna aad tahay qofka keliya ee kontroli kara sida uu u noolaanayo cimilada isbedesha iyo waqtiga isbedela maalin walba habeen ayaa daba socda adiguna waxaa tahay qofka goobjooga u ah nafsadaada raaxada aad dareemaysid maalin iyo habeen hadday isku mid noqoto wax ka wanaagsan ma laha noloshuna farxad ayaa ku dhamaysanaysaa waxaan jeclaystay inaan talooyinkan idinla wadaago maanta xaqiiqdii haddii aad sida ay tahay u fahantid talooyinka aan maanta halkan idinkugu soo jeedi doono waxa ay sabab u noqon doontaa in aad jartid silsilada xiriirsan ee xabsiga xeendaaban qof walba oo inaga mid ah ku haysa mar walbana dadka waxaan kula taliyaa oo aan dareensiiyaa in qof walba uu adduunkan ku nool uu xur yahay isaguna uu u madax bannaan yahay doorashada wadada uu ku soconayo noloshiisana ku hagayo haddii aad doonaysid inaad dhammaan ka taqallustid fikradaha dadka iyo hadallada ay inta badan isku dayayaan inay kugu kontarolaan ama ay sabab u noqdaan in aad tallaab hore u qaadi weysid waxaad samaysaa inaad dooratid qodobadan soo socda waxaad doorataa hal qof oo ka mida dadka aad isleedahay qofkani wuxuu ka guulaystay dhammaan waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin tusaale ahaan haddii qofkani uu ahaa qof jir ahaan aan dhammaystirnayn balse ku guulaystay noloshiisana tusay qofkani wuxuu ka guulaystay warka dadka iyo hadallada ay ku duraan inta badan waxaad ka doorataa tallaabooyinka uu qaaday fikradihii uu aaminsanaa iyo waxyaabaha uu noloshiisa ku hormariyey ha noqonin qof u wada hoggaansamay qofkaas balse dooro wax walba oo wanaagsan ilaan waxaa haysataa shayga ugu weyn oo ugu fadliga badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray taasi waa maskaxda nadiifka ah ee ka nadiifka ah fikir qofeed qodobka labaad waxaa muhiim ah inaad fahantid heerka noloshaada adiga aad ka joogtid iyo qadarinta aad naftaada u haysid hadallada dadka ay ku dhahayaan waxay kaa aaminsan yihiin ama
haddii ay dhab tahay xaqiiqna ay tahay wax ay ka aaminsan yihiin inay jiro waxaad ka doorataa oo keliya wax walba oo sare kuu qaadaya wax walba oo ku liidaya marnaba ha ogolaanin hana u hogaanshu waa sida badweyn doon sabeynaysa qofka doontaasi wadana waa adiga haddii aad u ogolaatid in dabayluhu ay hogaamiyaan doonta noloshaada waxay la mid tahay adigoo ogolaatay fikradaha dadka iyo waxay ka aaminsan yihiin oo noloshaada hogaaminaya taasi oo geenaysa meel aan marnaba aanay ka soo laabanin qodobka saddexaad imise waqti ah ayaa kaaga baxay ka fikirka fikrad qof leeyahay samaynta shaqo qof leeyahay iyo hadafka qof waxa uu hogaaminayo isku day inaad ka xuroodid dhammaan fikradaha dadka isku day inaad noqotid qof hogaamiya noloshiisa jeclow noloshaada hana noqonin qof ku fikira fikradaha dadka qodobka afraad ee muhiimka ah ka joog ha isku dayin in dadka oo dhan ay raalli kaa noqdaan ma dhici karayso waxaa dhici karaysa in dad badan oo ka mid ah dadka aadka kugu dhow ay iska kaa nacaan maxay kugu naceen allahu aclam laakiin adiga haddii aad isku daydid inaad waqti badan ku bixisid in dadkaas oo dhan ay raalli kaa noqdaan waxay noqon kartaa in waqtigaaga aad ilowdid nafsadaada aad dayacdid nafsadaadana aad liidid taasi oo keeni karta inaad noqotay xabad sigaar ah oo u gubanaysa raaligelinta qofka cabaya taasi oo aad noloshaada liidnaan ugu noqonaysa isku day in dadka oo dhan ay kuu sinaadaan oo aadan qofna ka sarraysiin dadkuna ay kaa noqdaan dad adiga shakhsiyaad adiga kula mid ah oo kaliya ay yihiin fikradahoodana aad qodobka labaad control adiga u noqotid ilaan adiga ayaa ah qofka mas-uulka ka ah noloshiisa qof adiga ku noqonayana ma jiro qodobka shanaad ee ugu dambeeya oo aan kusoo gunaanadayo ayaa wuxuu yahay ha noqonin qof fikir badan markaan taas leeyahay ayaa waxay tahay fikradaha tirada badan ee mararka qaar waxay ku jiheenayaan meel aadan ka soo laaban karin waxaa isku daydaa inaad noqotid qof degan maskaxdiisana ka shaqaysiiya fikradahana isaga koontaroola oo aynu fikraduhu isagu hogaamin waxaa laga yaabaa adigoo jaamacad dhiganaysid in macalinkaaga uu kugu yiraahdo waxaa tahay fashil ama qof fashilmay oo nolosha aana meelna ka gaarin haddii maanta oo dhan aad ka fikirtid noloshaadana ay kusoo laalaabato su-aashaas macalinka ma kaftan ay ka ahayd aniga miyaa faashil ah say ku dhici kartaa fikraddaasi madaxa ayay xanuujisay macalinku ma ogaan karo waxa aad ku fikiraysid ma ogaan karo goolkaaga amba yoolkaaga nololeed ma yaqaano waxa aad doonaysid inaad mustaqbalka hantiso amba aad qabato haddaba maxaad ugu dayacaysaa ka fikirka tirada badan ee nolosha dadka kale hadallada ay dadka kale kugu dhahayaan waxay kaa yaqaanaan ma jirto adiga qof adiga kaaga aqoon badan